xukuumadda Puntland ayaa dhawaan sii deynaysa qoraal ku qoran luuqad adag oo ka dhan ah wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya. Qoraal rasmi ah oo ay soo saari doonto xukuumadda Siciid Cabdilaahi Deni ayaa si adag uga hor imaanaya wax ka beddelka dastuurka kumeel gaarka ah ee dalka, kaasi oo ay ku howlan yihiin labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Dowladda Puntland waxay caddeyn doontaa inaysan qusaynin howlaha socda ee la xiriira wax ka beddelka dastuurka, taasi oo ay ku eedeynayso inay wadaan hal dhinac oo kaliya kuwaasi oo fulinaya go'aan iyaga gooni u ah. Mar kale, dowladda Puntland waxay sidoo kale mowqif adag ka qaadan doontaa tallaabooyinka baalmarsan dastuurka iyo shuruucdii lagu heshiiyey ee fila Soomaaliya, taasi oo u muuqata in ay hadda dowladda madaxweyne Xasan si qad iska tuurnimo ah ay iskeed wax u beddelayso. Xogta ayaa intaasi ku daraysa in sidoo kale uu fashilmay shirkii Garowe lagu qaban lahaa oo gogashiisa uu dhigay madaxweyne Siciid Cabdilaahi Deni si looga hadlo arrimo badan oo la xiriira siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa quseeya arrimaha dastuurka. Dhinaca kale, xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta dood ka yeelanaya wax ka beddelka iyo ansixinta dastuurka kumeel gaarka ah ee Soomaaliya. Siciid Cabdilaahi Deni oo haysta 5 sano oo cusub ayaa u muuqda mid weli sii wada dagaalka uu kula jiro fila Soomaaliya. Madaxweyne Xasan oo isaguna haysta 2 sano oo muddaxileedkiisa madaxweynenimo ka dhiman ayaa u muuqda inuu yahay mid sameynaya qad iska tuurnimo, iyadoo ay dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ugu baaqayaan inuu ka tanaasulo dagaalka uu kula jiro Puntland. Deni iyo Xasan Sheikh ayaa si weyn u kala fogaaday markii uu madaxweyne Xasan ku guuleystay kursiga madaxweynenimada dalka, kaasi oo uu si weyn qayb uga qaatay madaxweyne Deni ayaa la sheegay inuu bixiyay codadkii uu madaxweyne Xasan ku helay xilka madaxtinimada, isagoo ku bedeshay in la siiyo jagada ra'iisul wasaare oo uu Siciid Deni beel ahaan xaq u leeyahay marka madaxweynuhu ay haystaan beesha Xasan Sheikh uu ka soo jeedo. Markii uu Xasan Sheikh noqday madaxweynaha dalka, waxa uu ku booday ama ka baxay ballantii uu la galay Siciid Deni, taasi oo bedeshay jawigii siyaasadeed ee Soomaaliya. Puntland ayaa dhowr shir oo muhiim ah aan soo xaadirin, iyagoo diidan doonista arrimo badan oo uu Xasan rabay inuu meel mariyo. Dhawaan ayay ahayd markii war soo baxay uu sheegay in madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray, waa Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Sheekh Shariif ay rabeen inay dhexdhexaadiyaan khilaafka ka dhaxeeya Deni iyo Xasan. Waxaa la sheegay in Farmaajo iyo Sheekh Shariif ay madaxweyne Xasan kula taliyeen inuu hakiyo wax ka beddelka arrimaha la xiriira dastuurka si loo xalliyo khilaafka ka dhaxeeya Garowe iyo fila Soomaaliya. Balse waxa saakay ka socda baarlamaanka oo ah in horey loo sii gudagalay wax ka beddelka dastuurka ayaa muujinaysa inuu sidaasi ku baabi'i karo shirkii lagu balansanaa Garowe. Waxa kale oo ay muujinaysaa sida uu madaxweyne Xasan uga madax adag yahay Deni iyo mucaaradka. Laakiin waxaa la sugayaa jawaabta ay soo wada Puntland ee ku aadan arrinta wax ka beddelka dastuurka. waad ku maasantahay daawashadaada. haddii uu ku qanciyo muuqaalkeena, gaarsii saaxiibada kale, folowna soo dhabeejkeena mahadsanid.